بسم الله هرت دمان وأنا إذن سلام يا عمر سير بيو أديك يا أصحاب هذا دمان داودياش وحن لي هاي ماني وناكسن هرت وحن ربنا إن كهذا حسن روح الله بصالح أبوانكو صوت أفريقيا أيو جو جري كوفر أفريقيا أنا وحن تجي لابدكم لاتني كوده فبراير وحنا كسر لابتي وأنا كيمت إسلا سنة كاس أكتوبر markii ay ahayd 14 hadda inta ay joogo horta wax badan ma ahayn waxay ahayd macnaha 8 bil ha ahata 8 bil laakiin waxa soo faa'iiday waxyaabahaas badan waxa kamid ah abwaankaas dadkii muxuu ahaa hadda oo isku levelka ay ahayn South Africa isla joogan gaar ahaan gobolka East Cape ee magaalada Port Elizabeth Soomaalida ay u taqaanay BE magaaladaas ayuu joogi jiray gaar ahaan location wuxuu badnaa Motherwell yiraahdo marka abwaanka horta meesha dhibaato fara badan ayuu kala kulmay xilligaas waaga horta abwaanku wuu yaraa balwadna wuu lahaa nin walbo hadda South Africa waxa laga shaqeeyaa dukaamada abwaanku waxa la lahaa ninka balwadu leeyahay hadda dukaan aan geysto dukaanku wuxuu yaali iyo kulli hadda macnaha dukaanku dhulku dhiga macnaha beerta uu gelinaa marka sidii shaqalaan oo ku noqday sidii dirbiskiiga sidii magaalada iska dhex joogay suuq Soomaalida oo hadda townka macnaha u taqaanid suuq weyn iska dhex joogay adiga xilli 2004 dhamaadkiisii miyaa uu ka soo tagay Hargeysa ku soo laabtay markaas kadib macnaha uu noqday macnaha inuu fanaan noqdo ama eriyaha curiyo macnaha sameeyo muxuu ahaa heesaha sameeyo macnaha heesaha kaliya macnaha ma sameyn karo macnaha waxaan u dhalasho waayay hadda waxaas ma aan qofka haduu way arag yahay meelo badan oo soo maray heesaha uu sameyn kara sababtoo macnaha way aragnimadiisa macnaha wax walba ka caawinay marka xasan dhuxul absaalax macnaha heesta South Africa macnaha dhibaatada South Africa qabsatay iyo takoorkaas hadda iyo muxuu ahaa waxyaabahaas faraha badan leh hees macnaha oo waxa jira macnaha إذا كهليس دبعتها مش كقصتي كهليس هست سواء قادم محمد سعيد بيكي استمع عدو حيرة دول كسرع إنكو غفرا مركب حبو وريان كوجود دالين عمره هستاس ودول كسرع إنكو غفرا وحوليه هاي من درارس وجري واي أرق لما يسترن دول كماله فربنا عجيز صور دقي هكون نقول دلانكي والدكي دلماذا بري معناه هذا وحوليه هاي من درارس وجري معناها واي أرق لما يسترن دول كماله فربنا عجيز صور دقي وليه marka heesta waxa kale oo leedahay qofka aad wax dheertahay waxa jira in ka dhiman oo loo dhameystiray marka heestaas ka hadlayso ninkaas xaaskiisana way soo garab qabatay ma sha Allah marka ninkaas taariikhdiisa inta lagu soo koobi karo aniga inta South Africa aan joogay dadka asxaabtiisa wallahi saabay ugu sheegeen inta isla joognay saas bay ahayd hadalkee macnaha waan waliba xaqiiqan badan sameeyay waan xaqiijiyay hadalkii waxaan sameeyay muxuu ahaa dabagal dheeraad aan sameeyay maxamo macnaha waxaan inay been yihiin been abuur ay yihiin inay xaqiiqo tahay soo ogaaday markii dad waxaan ogaaday inay xaqiiqo tahay marka hadda aniga waxaan nahay suxuf Soomaaliyeed wali madax banaan magacaygu waa Maxamed Deeq Dooraale waa sidaan hore kuugu sheegay marka hadda personal attack igama ahan abwaanka history macnaha ama wadanka Koonfur Afrika macnaha wixii ku qabsaday oo baa sheegay asnama diidan in la sheego iyo muxuu in laga hadlo marka abaan kala waxaan leeyahay horta hadda waxa waay wuxuu ku tirsiyahay baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland hadda waa nin muxuu ahaa siyaasadda xaggeeda u go'ay saas ay tahayna ilaa hadda xidigay geeska iyo hadda wixii kulli hadda waa lugnu kula jira lugnu muxuu ahaa hadda banaanka muxuu ahaa lugnu waxay ugu jirtaa baarlamaanka oo siyaasadda lugnu waxay ugu jirtaa xagga iyo muxuu ahaa hadda meeshuu joogayo abwaannimada iyo waxa marka abwaanka waxaan leeyahay ilaahay ha karaameeyo ma sha Allah abwaan xasan dhuxul absaalax taariikhdiisa aniga muxuu intaas ku soo gabagabeynaa waa intii macnaha liiga sheekeeyay waa asxaabtiisa dadkii isku meel ay joogeen macnaha hadda waa isla ceeshayeen ay sheegeen marka cumrow adiga iyo muxuu asxaabtaada waan idin salaamay waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan